arrinta Gaza ayaa weli dhibaato xoog leh ay ka jirtaa iyadoo dhinaca Rafa ay galeen ciidamada wadanka Israa'iil 2 maalmood ka hor iyagoo xirtay wadooyinkii gargaarku ay ka soo gali jireen. dhib xoog leh ayaa ka jira dhinaca caafimaadka iyadoo la sheegay isbitaalada shidaalku inuu ka dhamaanayo muddo 24 saac haddii aan la ogolaanin shidaal cusub in la keeno. laanta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan dhinaca caafimaadka WHO ninka madaxda ka ah Dr. Tedros Ghebreyesus ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay laga maarmaan tahay in la ogolaado shidaalka iyo gargaarka guud ahaanba ka imanaya dhinaca masaarida iyadoo la sheegay arrintaas haddaan la yeelin inay xirmi doonaan isbitaalada labada iminka howlgala. isbitaalka lagu magacaabo Al Hilal Emirate oo ah isbitaal isagoo dhinaca dhalmada ah ayaa wararku waxay sheegayaan in shidaalku uu gabaabsi yahay isagoo markii horeba dagaalka ka hor ilaa iyo 85 qofood ay maalintii ku dhali jireen iyadoo guud ahaanba isbitaalada magaalada Gaza 180 ay ahaayeen haweenka celcelis ahaan maalintii ku dhala. waxa kale oo jira nin lagu magacaabo Marwan Homis ayaa waxa la soo sheegay in uu sheegay isagoo ah madaxa isbitaalka kale ee lagu magacaabo Abu Yusuf Al-Najjar in dhammaan shaqaalihii loo sheegay inay isbitaalka ka baxaan oo ay markaa meel kale ay aadaan taasoo iyada lafteedu qawaaniinta caalamiga markaasi ka soo horjeeda. waxaa lagu baaqayaa guud ahaanba in arrintaas ay ka laabato dowladda Israa'iil laakiin Israa'iil waxay sheegtay inay ka go'an tahay weeraradii dhinaca dhulka iyo dadka inay ka qaxiso oo meeshaas ay joogeen waqtiyadii ugu dambeeyay ilaa iyo 1,500,000 oo ruux magaaladana asal ahaan ay deganaayeen waa Rafa ilaa iyo 275,000 oo ruux. xaaladaha laga soo sheegaya ma qumanaadey tahay dhinaca cuntada dhinaca biyaha iyo waliba dadka ilaa iyo 100,000 ka badan ee lagu bilaabay in laga raro aagaga ay joogeen. marka la fiiriyo sidii dadku uga qaxeen qaybaha kala duwan ee Gaza iyo inay ku urureen Rafa waxay ka dhigan tahay geedkama xageeyo laakiin ciidamada Israa'iil uma aaba yeelayaan dadka masaakiinta ee kala duwan haweenka iyo carruurta iyo dhibka xoog leh ee guud ahaanba ka jira marka la fiiriyo dhinaca Rafa iyo waliba Gaza. dhib xoog leh ayaa jira isniintii ilaa arbacadii shalay wararku waxay sheegayaan ilaa 109 ruux in la dilay 296 ruux dadka badanna imarkaa la dhaawacay oo haween iyo waliba carruur iyaguna u badan. baaqyada ka imanaya guud ahaanba caalamka waa uu ka furaystay dhagaha Benjamin Netanyahu iyadoo dhinaca kale dowladda Mareykanku ay shaaca ka qaaday inay ku tirtirsiinayso labada dhinacba sida Xamaasba u ogolaatay inay qolyahan Israa'iil iyaguna u ogolaadaan waanwaanta la waday ee ka socotay muddaba magaalada Qaahira. haddii aan waanwaan la gaarin xaaladdu ma wanaagsanaanayso oo dhibaato xoog leh ayay keeni doontaa iyadoo 7 bilood dadka dhintay ay ka badan yihiin 35,000 oo ruux iyadoo dadka dhaawacuna 80,000 ay ka badan yihiin. wixii warar ee ku soo kordhay guud ahaanba Rafa iyo xaaladeeda wararka iyaga dambe biidnillaahi kariim.